wafdigan uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya in qayb ka ahayeen xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ee maanta soo gaaray magaalada Cadaado ayaa waxa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay madax ka tirsan galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. wafdiga oo soo dhaweyn kooban lagu sameeyay qaybta nasiinada garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado ayaa halkaas ugu horeyntii waxa warfidiyeenka kula hadlay madaxweyne ku-xigeenka galmudug Maxamed Xaashi Cabdi kaasoo sheegay inuu ku faraxsan yahay imaanshiyaha wafdigani ka socda dowladda federaalka Soomaaliya. inta kadib runtii maanta waxa sharaf noo ah dowladda federaalka ay dhismaheedii la dhisay maaragtay deegaanada Soomaaliya meeshii ugu horeysay oo tagto inay galmudug noqotay oo maaragtay hadana magaalada Cadaado noqotay runtii waa waxa aad iyo aad loogu farxo. wasiirka arrimaha gudaha socdaalkiisa ugu horeeyay wuxuu ka bilaabay galmudug wuxuu noogu yimid maanta halkaan si wafdi ballaaran oo hogaaminayo. waxaan leenahay mudane wasiir ku soo dhawow degmada Cadaado oo caasimada ku meel gaarka ee galmudug. runtii waxa farxad noo ah maaragtay inaan noo imaadaan nala qaybsataan dhibka dhulkan ka jira abaarta iyo maaragtay iyo colaadaha iyo waxyaabo badan oo ka jiro iyo maaragtay annaga oo doonayna siyaasiyiin insha Allah in waxyaabo badan aan qabanno haddii la yiraahdo. waxaan rajaynaynaa in si guul ay noogu dhamaan doonto haddii la yiraahdo hawshan iyo maaragtay shaqada aan halkan ka qabanayno dhan. wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda Soomaaliya Cabdi Faarax Siciid Juxa oo hadal kooban ka jeediyay goobta ayaa tilmaamay in socdaalkoodu ku saleysan yahay wada tashi ay la yeeshaan madaxda galmudug qaybaha kala duwan ee bulshada iyo xaaladaha abaareed ee ka jira deegaanka. aad bay farxad iyo sharaf noogu tahay labadaba sida madaxweynuhu sheegay inaan safarkii ugu horeeyay ee dowladda federaalka ay kaga baxdo magaalada Muqdisho ilaa intii la soo dhisay aan maanta ku nimaadno dowlad goboleedka galmudug magaalada caasimada ku meel gaarka ee Cadaado. aad iyo aad bay sharaf noogu tahay. wuxuu safar ku soo aaday xilli adag marka la eego waxyaalaha durfaha dalka ka taagan oo abaaraha iyo colaadaha iyo waxyaalaha jira. waan ognahay in xilli adag ay tahay oo la jecel yahay inaynu xooggeena iyo xoolaheena maskaxdeena kullaba aynu ku wajahno waxyaalaha adag in hor yaala ee waliba ugu weyn arrimaha abaaruhu ay ugu weyn yihiin. safarkayagu waxa weeye inaanu kow sharaf bayno taan marka hore nimaadno inaanu wada tashi iyo iswaraysi iyo kala xog qaadasho ayuu ku saleysan yahay. amuraha jiro dhan inaanu iska wareysano waxaan jeclahay inaan waqti isu helo aad bayna sharaf noogu tahay. waqti baan isu helaynaa oo bulshada qaybaheeda kala gudsanna waa arki doonaa. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. annaga waxaan halkan la nimid niyad wanaag. waxaan jecelahay inaan wax kordhino. waxaan jecelahay inaan amuraha hor yaala dhulka gaar ahaan deegaamadan iyo abaarahan iyo guud ahaan in la wajaho arrintaas aan la nimi. socdaalkan maanta magaalada Cadaado ay ku yimaadeen wafdiga horkacaya wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku soo beegmaysa xilli ay jirto kala aragti duwanaansho ku aadan xilliga ay qabsoonayso doorashada madaxweynaha galmudug iyadoo baarlamaanka ay asteeyeen inay qabsoonto 10 bishan ayna ku guda jirno. maxamed maxamuud owaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado.